kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabakada wararka ee Dugaal TV kusoo dhawaada xilligan wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka ee ugu xiisaha badan qaybtaana haduu Rabi qadar waxaan idinku soo gudbin doonaa dagaal weyn oo ka dhex qaraxay Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed iyo wasiirka haweenka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye dagaalkan oo social media aad looga hadalhayo xilli Sheekh Muqtaar Roobo wasiirka diinta oo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la saftay Khadiija Maxamed Diiriye xogii ugu dambeeyay dagaalkan ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doona dhanka kale ciidamada hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka oo maalmahan howlgalo ka wada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo qabteen rag la xiriirinayo inay saaxiibo dhow ama xiriir dhow la lahaayeen madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisii amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xogii ugu dambeeyay ee raggaasi la soo qabtay xaafadihii magaalada Muqdisho ay kaga sugnaayeen ayaa saaxiibayaal idin wadaagi doona haduu eebaydmo balse marka hore aan ku bilaabo maalmihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada la soo dhigay sawirro laga soo qaaday wasiirada haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye kaas oo hadal weyn ka dhaxawuuray ama hadal hayn ka dhaxawuuray baraha bulshada xilli ay maamadani wadatay surwaal iyo shaati oo dadka badani ee Soomaaliyeed aad uga falceliyeen Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa arintani si weyn uga xumaaday isagoo arintani ka hadlay waxa uuna wasiiradani ku eedeeyay in ay hormuud u noqonayso gabdhaha Soomaaliyeed ee xilligan soo baxay lagana yaabana in ay ku daydaan maamadan 60 jirka uu ku sheegay Khadiija Diiriye oo wadatay surwaal iyo shaati ayaa maalmo ka hor bartayda Facebook soo dhigtay sawir looga qaaday gudaha garoonka diyaaradaha Dancade ee magaalada Muqdisho kaas oo falcelin badan abuuray Sheekh Umar ayaa wax laga yaxyaxa ku tilmaamay labiska ay isku soo sawirtay maamadan isagoo talaabadaasi ku macneeyay mid fariin culus xambaarsan oo dhaqanka suuban ee muslimiinta meel ka dhac ku ah habar wasiira oo dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaa meel fagaara la soo istaagtay surwaalkii ragga loogu talagalay xitaa ma ahan surwaalkii labiska ee waa surwaalkii sariirta lagu jiifan jiray ayuu yiri haddana waxay soo dhigtay social media in adayg xishood darida iyo sirig la'aantu heerkaas ayay gaartay 60 jir way ka weyntahay ayuu yiri bal maxaan u haray oo da'dan ay isku qaawinaysaa ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed Umar xilligan wuxuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xilli wararka qaar ay tibaaxayaan wasiirka diinta oo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Muqtaar Roobo Cali inuu arintani aad uga xumaaday sidoo kalena uu hanjabaad hawada u marsiiyay Sheekh Maxamed Cabdi Umar isagoo ku tilmaamay in uu yahay ama in uu xumeenayo dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kalena uu yiri nin shayqa u jawaabaya ama markaa sidoo kalena social media intuu soo fariisto qof xil ka haya dawladda Soomaaliya ahna qof markaa 60 jir oo haweena waxa uu ku tilmaamay inuu yahay dhinaca dhaqanka Soomaaliyeed meelna dabcan kaga dayeenin sidoo kale Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa la sheegay in hanjabaadiisu ay ku koobneen kaliya inuu hadal dabcan u mariyo hawada sidoo kale wararka qaar waxay tibaaxayaan in Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur Sheekh Maxamed Cabdi Umar uu taleefanka kula hadlay sidoo kalena uu ugu hanjabay in haddii xitaa Soomaaliya meel kamid ah u yimaado talaabo sharciya laga qaadi doono dhanka kalena haddii aynu eegno ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafaba howlgalo qorsheysan ka waday xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa xalay waxa la soo warinayaa in ay soo qabteen rag la rumaysan yahay inay xiriir dhow la lahaayeen madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisii amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir raggaan oo la sheegay in ay ahaayeen shabakad ka dhisan magaalada Muqdisho wararka qaarna waxay tibaaxayaan in la rumaysan yahay in dagaalo ay ka fulin lahaayeen magaalada Muqdisho sidoo kalena tiradoodu lagu sheegay inay ahaayeen 10 qof oo la sheegay ama la rumaysan yahay in ay diyaarinayeen hub iyo sidoo kale qaraxyo waaweyn oo ay ka fuliyaan qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ciidamada ayaa howlgalka ku burburiyay shabakad ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in la rumaysan yahay in ay xiriir la lahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir
wararka qaarna waxay tibaaxayaan in raggani taleefanadoodu laga helay xiriirka ay la sameynayeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo mar soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka markii dambana loo magacaabay la taliyaha amniga iyo sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogihii ugu dambeeyay iyo wararkii aad kala socotay warbaahinta Dugaal TV-na daawadayaal waa nageynta